Aan ku bilaabay wakiilada beesha caalamka ayaa sheegay inay wadaan dadaalo ay ku doonayaan inay shirka xerada Afisiyoni dib isugu soo celiyaan madaxda dawladda federaalka iyo kuwa dawlad goboleedyada. War ka soo baxay beesha caalamka ayaa waxaa lagu sheegay inay wadaan kulamo ay doonayaan in mar kale la sii anbaqaado dadaalada ku aadan arrimaha doorashooyinka iyo xalinta khilaafka ka taagan. Beesha caalamka ayaa u muuqata inaysan taageersaneyn go'aankii ka soo baxay xukuumadda ee ahaa inuu fishilmay shirkii ka socday xerada Afisiyoni. Guddiga ka hortagga iyo la tacaalidda xanuunka COVID-19 ee Puntland ayaa si ku meel gaar ah u hakiyay goobaha waxbarashada kadib markii ay sii kordheen kiisaska cudurka coronavirus ee deegaanada maamulka Puntland. War ka soo baxay guddiga ayaa lagu sheegay inay si ku meel gaar ah loo hakiyay howlihii waxbarasho ee ka socday dugsiyada aasaasiga, macaahidda, jaamacadaha iyo wixii la mid ah, iyadoo tacliinta lagu sii wadi doono baa la yiri habka fogaan aragga. Guddiga ka hortagga iyo la tacaalidda COVID-19 ee Puntland wuxuu ku taliyay wasaaradda waxbarashada inay soo hormarisay imtixaanka naqliga. Sidoo kale guddiga ayaa awaamiir kale oo la xiriirta COVID-19 ka soo saaray masaajidda, goobaha waxbarashada iyo gaadiidka dadweynaha. madaxweynaha dalkaasi Djibouti Ismaaciil Cumar Geelle ayaa la filayaa inuu kordhiyo xukunkiisa in ka badan 20 sano kadib markii uu dalkaasi u dareeray doorasho guud. Geelle oo 73 jir ah ayaa waxa uu wajahayaa siyaasiga ku cusub siyaasadda ee Sakariya Ismaaciil Faarax oo ah ninka kaliya ee la tartamaya kadib markii xisbiga mucaaradka ah ay go'aansadeen in ay qaadacaan doorashadaasi. Ganacsade ku takhasusay soo dejinta alaabta nadaafadda Faarax oo ah 56 jir waxay u arkaan indhaindhayaashu inaysan caqabad weyn ku noqon doonin ninka awoodda ku haysta waddanka Geeska Afrika muddo 22 sano ah. Geelle oo ay wehelinayaan xaaskiisa iyo mas'uuliyiin ka tirsan dawladda ayaa ololihiisa ku soo gabagabeeyay Arbacadii dibadbax qurux badan oo kama dambeys ahaa oo ka dhacay garoon ay ka buuxeen taageerayaal faraxsan iyo dhaanta dhaqameed. Ismaaciil Cumar Geelle waa madaxweynaha haatan ee Djibouti isagoo xafiiska jooga tan iyo sanadkii 1999.